annagoo ah qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay ka dhintay marxuum Cabdi Cali Seed Gaashaan la dhexe oo ciidanka booliska ka tirsanaa waxaan dawladda u soo jeedinaynaa inay qaato doorkeeda dawladnimo ee ay gudato waajibaadkeeda ka saaran ilaalinta muwaadinka iyo amniga waddanka. dawladnimadu waa nidaam kala haga bulshada. dadku waa isdilayaa, waa isdhacayaa, waa isdhaawacayaa, waa isxalayaa. waxaa kala haga waa sharciga dalka u yaalla. dawladda ayaana fulisa. haddaan nahay ehelada iyo qaraabada marxuumka Gaashaan la dhexe Cabdi Cali Seed, markaan aragnay maydka sarkaalka sida uu u dhintay ama qaabka maydkiisu ahaa, waxaan xaqiiqsanay in la dilay oo uusan asagu isdilin. waxaanu caddaynaynaa qodobada hoos ku qoran. waxaan noo caddaynaya arrintaas qodobada hoos ku qoran. kow, meesha dilku ka dhacay oo sarkaalka maydkiisu yaallay waxay ahayd xerada daraawiista dhexdeeda Sheelare oo saraakiishii deegaanka lahayd, saraakiishii heeganka lahayd iyo waardiyihii shaqada lahaaba ay diyaar ku ahaayeen xerada falku ka dhacay intuusan ka dhicin iyo markuu dhacay dabadeedba. labo, in aan cid loo xiray aanay jirin ilaa iyo hadda. saddex, sarkaalka Cabdi Cali Seed Gaashaan la dhexe waxaa wacay 5 saac ee habeennimo taliyaha xerada ina Goonweyn. afar, iyadoo ay jirtay handadaad hore iyo marxuumka Gaashaan la dhexe Cabdi Cali Seed oo horay u yiri haddaan dhinto waxaa i dilay ina Goonweyn iyo Sulub. 5, taliyihii booliska gobolka ma iman meeshii sarkaalku ku dhintay. 6, in sawirka baraha bulshada la geliyay ay yihiin sawirada baraha bulshada la geliyay ay yihiin kuwii ay hay'adda baarista dambiyada CID ka qaaday waa baaraynaa ay yiraahdeen innagoo ka warsugayna natiijada baaritaanka ay propaganda suuqa geliyeen been ah oo ah inuu isdilay. waxaa xusid mudan qodobka 7 waxaa xusid mudan in markii wiilkiisa orodka ay u yimid meeshii uu aroortii damcay inuu qaado sawir ka qaado qaabka aabiis u dhintay in loo diiday mobilkii laga qaatay. gabagabadii ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa madaxda dalka in laba nin ee kala ah ina Goonweyn iyo Sulub naloo maxkamadeeyo sababtoo ah mas'uuliyadda falkaas arxam darrada ah meelna uma dhaafisna. labadooda waa taliyihii daraawiishta iyo taliyaha xerada daraawiishta ee falka ka dhacay. waxaan kaloo ognahay amaba dhacda sida badan in dadka falalka oo kala sameeya ama ku lug yeeshahay ay qorshaystaan sida ay uga bixi lahaayeen dalka. waxaan ka codsanaynaa madaxda dawladda in labada nin si degdeg ah loo qabto, mas'uuliyadda ay hayaanna looga hakiyo inta kiiska ka dhammaanayo maadaama ay eedaysanayaal yihiin. waxaan intaa ku daraynaa in falkan foosha xun ee sarkaalka lagu khaarajiyey uu la mid ahaa kii lagu dilay Allah u naxariistay labadoodabe saxafigii Jamaal Khashoggi ee caanka ahaa ee looga dhex yeeray sida sarkaalkan loogu yeeray xerada daraawiish dhexdeeda 5 saac midnimo looga dhex yeeray qunsuliyadda Turkiga uu ku leeyahay dalka Sacuudiga. wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan leenahay maxaa kulmiyey weedha iyo sacnaas adag.